سبحان الله سبحان الله. hooyadii ku dhashay 9 bilood caloosha kugu waday 24 bilood waa 2 sano kugasha kugula jirtay oo ku daba taagneed si saxarada ee kaadida iyo mataq ay kaaga hagaajin lahayd ay naas ku siin lahayd ay kugu qabeynayna kugu raaxayn lahayd kadibna 2 sano kadibna ilaa aad ka gaaraysan 10 sano ku daba taagneed cuntada ku karin jirtay akhriska iyo xiliyada waxbarashadana ku geeyni jirtay oo ku aadini jirtay har iyo habeen u soo jeeday si aad heer u gaari lahayd aad qofin u noqon lahayd in jasaheeda sidan aad ka dhigtid waa shay murugo ah waa shay fajac ah waa shay aad iyo aad u foolxun subhanallah subhanallah. hooyada xaqeedu ma wax la gudi karaa waad garanaysaa xadiis ku soo rortay iyo halka diinta islaamka ay dhigto hooyada maqaamkeeda ay u sharaftay xadiis nabiga waad garanaysaa inuu hadda koobi maayo matirin karo laakiinse diinta islaamka way maamustay hooyadu waxay siisay aclaa maraatib martabooyinka meesha ugu sare wajacalat aljannata taxta aqdamayha jannadan waxay dhigtay labadeeda gumadood hoostooda jannada yeeshay xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam garanaysiin ninkii uu ku yiri jannada hooyada labadeeda lugood hoostooda ahaatay ilaasho mise iska dayac iska tag. hooyadu waa insaanka kaliya ee la xiriira ama alla ula xiriira subxaanahu wa tacaala raxmadiisa kama ana allah caza wajalla jacala taacata alummi wa ridaaha maftaaxan min mafaatiixi aljanna sida alla subxaanahu wa tacaala oo yeelay raalli ahaanshaha hooyadu furooyinka jannada ka mid ah in lagu caasiyo cuquuq lagu noqdana ay oga mid tahay dambiyada waaweyn allatii tadusu linsaanu fi acmaaqi aljaxiim qofka bini-aadanka geynaysa jahannamo meelaheeda ugu hoose ee moolka ee godka ah. subxaan allah. ninkan aad arkaysaan sawiraantiisu waa dhacdo naxdin loo maanta ka dhacday magaalada muqdisho. ninkaasi 37 jirka ah ayaa hooyadiisa saakay amnin barqa ku gowracay magaalada Kismaayo. waa wiil dhalinyaro ma dhihi kara waa nin weyn hadda markan 40 ee wax yar uga dhimanba loo keenay dhaqan celis oo wadamada qurbada laga keenay. hooyadiis ayaa xagkaas kala soo carartay halkan ay keentay Kismaayo si ay dhaqan celis bal wuxuu iskaga bedelo oo dhaqankii iyo diinta islaamkii bal uu ugu dhex jiro wax ooga barto laakiin se muxuu ugu olgud isaga dilid iyo nafta iyo uu ka jiro nafta. marka qofkan oo kale horta dadka halkaas joogo qurbaha joogo qurba dad inagama jiro diin iyo dhaqan inagama jiro dad dugaag ah wuxuush ah baa inaga jira caruurta halkaa ku dhasha ama ku kora in yar mooyaane ama kuwa aada iyagoo weli maskaxdooda si fiican aan u karin yani aan u kala bixin aan u weynaanin sidaas bay noqon hayaan in yar ilaahay u naxariista mooyaane. dadka qurbaha u ordaayo sidan baa idin sugaysaa in caruurtiina hadhow hadiina ka taxadirin oo diinta islaamka in ku barbaarin ina barin caruur meesha ayaa la geysanin waa digtooni horana waa laga digay anagana had wax horana yar in baa oranaya oo leeyahay war caruurtiina halkaasi uma roona. Afrika waa meel lama horaana Afrika waa laga cararayaa bilaadanka sidiisuu meesha laga reebo ugu daran yahay. al insaanu sullita calaa maa nuhi qofka bilaadanka wixii laga reebo ayaa lagu saliday waxaan daa lagama bakare sheegana sameyn waxaan sameeyaa tirana sameynaa dabeecadda bilaadankaas sidaas ahayba. Afrika waa meel raaxee oo diintaada ku badbaadsan kartee caruurtaada ku badbaadahayaan adiga halkaas arkay maxaa meel dugaag iyo wuxuu joogo caruurtaada ay bahla noqonayaan oo adiga waalidka dhalayba ay ku dilayaan maxaa laga doonayaa marka horeba waalidiintu waa in arrinkaasi ay ka fiirsadaan. hooyadaasi Allah u naxariisto janna mafuuxeedana janna Allah ka dhigo. dhalinyaro waalidiintiina waliba khaasatan hooyo haloo naxariisto haloo turo haloo dhegnuglaado hadalkeeda hala qaato wax waano iyo wax tar leh adiga wax ku tar leh bay hooyo ku faraysaa waxay ka reebayso wax un adiga ku dhibaataynayo waayo hooyadu
cunugeeda ma jeclo inay meel xun ku aragto, wax alla wixii dhibaataynaya ma ogolo, mana aqbalayso. Sidaas darteed adiga ha u malaynin in ay kula dagaalamayso ama waxani ay kaa reebayso in ay lid kugu tahay, dantaada ku jirtaa. waalidiinta bari ha loo noqdo oo waalidiinta yaa lagu caasinin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.